diimeedkani ka furmay magaalada Johannesburg oo ay soo qabaqaabiyeen golaha culimada Soomaaliyeed albayaan ee waddankani Koofur Afrika oo kulan sanadeedkii lixaad ee sanad waliba xilligan oo loo qabtay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koofur Afrika ayaa lagu qaban doonaa 9 gobol oo ku kooban yahay dalkani Koofur Afrika waxaana sanadkan lagu martiqaaday culimada kala Sheikh Maxamed Idiris Ahmed Sheikh Shurdan Engineer عبدالقاني قرنان شيخ دكتور عثمان علي فارح شيخ بشير يوسف شيل شيخ دكتور أحمد ولي شيخ محمود يا شيخ دكتور يوسف محمد حسين فرتانكا كل ديميد كان هي waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaalida ee ku leedahay dalkan Koonfur Afrika ururada jaaliyada Soomaalida culimada diin ganacsato aqoon-yahano arday dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika gudoomiyaha guddiga qabaqaabada Shir Diimeedkii lixaad ee sanadkan 2015 Sheikh Shariif Abuukar Afey iyo xubin ka tirsan aasaasiyaasha golaha culimada diinka albayaan ee dalkan Koonfur Afrika Sheikh Qorane Cabdi Maxamed oo iyagu shirka furaya culimada diinka uga timid wadamada kala duwan ee adduunka uga mahadceliyay imaatinkooda iyo ajiibidii ay ajiibeen kala soo qaybgalka Shir Diimeedkii lixaad ee jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika waxaan u fadhinaa wadankii mutamarkii lixaad ee jaaliyada Soomaalida oo ay soo qabanqaabiso ama ay soo qabanqaabiyaan golaha majliska bayaan al-islaami mutamarku waa mutamar sanadle ah waa mutamarkii lixaad ee jaaliyada Soomaalida Koonfur Afrika ay qabsato majlisku wax ka badan 22 masjid oo waxna masjid maaragtay majliska magaciisa ku qoran waxna la siiyay oo leeyahay isticmaala gacanta ku haya wax ka badan 12 madariso taqriiban 14 madariso oo ardadu dhigata ay ka kooban tahay 1400 iyo siyaado ay gacanta ku haya سيايا سفير كسفارة الصومالية دالك كوفر أفريقيا محمد علي ميرن نبضوني وقطبت كجيبه شر ديميدكي لعاد جالية الصومالية كفر من مدينة جوهانسبرغ هيا ووران ونهد عليه قراء علماء الدين كالصومالية البيان هيا وشركة عن السواب أبولي وعونا السيدو كالسيوين أسوى دبيلين علماء الصومالية يو كالين الدنيا دافئة سيايا وفا إيديان صومالية كودا كندال كان كوفر أفريقيا السلام كدب كلمة المشي كلها هاي واحد هاي لما مسألة إنهم سولوا علماء راس كاتم الملاها فوق وقصوا تجدم تودي قيس تودي كل أي واحد قاسم سلك وقاعد إن أي النجا وحي إلى أي بريء أي كجارة أي نجاسية إن أنا سولوا ولا وسولوا ولا كونفور أفريقيا وسولوا ولا ضد المؤمنين تا سميت المؤمنين كسيعة الصوماليين كسيعة يعرف عن الولاية كامل قدوميها جالية الصومالي كوميونيتي بود مدينة عامر شيخ قدوميها جالية ساسة عبد الرحمن رابي oo ka hadlay madasha Shir Diimeedkii lixaad ee ka furmay magaalada Johannesburg ayaa sheegay in culimada si aan kala qaybsanaan lahayn loogu soo dhaweeyay xilligaani waxayna intaasi ku dareen in culimadu aan la soo dhaweyn oo kaliya ee laga faa'iideysto wixii shirkan ka dambeeyana la sii wado midnimaanta iyo isku xirnaanshaha kulankaani ka muuqda أنا ولا أنا وكيل الرئيس معه طبعا سنة من ذلك الجوع سدح سنة من جميع الجالية الحكومة عابنا وما في جوع الإنسان فيها أن يبقى كسوستاك أما ليش يسوي تاسع في كتوس إسرع كذي هنا ما نمرين هذا بدل مسوق الوجهة لكن إن شاء الله تعالى بل أنا كنا سدير وعن سليم welcome أنت إلى نتك نسوق هذا sababta aan leeyahay taas waxaa weeye wax badan oo jiray ama khilaaf dhexdeen ah waxaan u maleynayaa inuu dhamaaday culimada kuwa jooga iyo kuwa maqan waa la soo dhawaada dalka Koonfur Afrika kusoo dhawaada caasimada ganacsiga ee dalka Koonfur Afrika ee magaalada Johannesburg kusoo dhawaada jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo sidoo kale caan sheegay هذه كانت دولات وطن يسويها وقرأ يسويها وسويها يعني أنا جالية ديني في أفريقيا أو مدرسة أو من الناس يعملوا في المسؤولية محمد إدريس
axmed oo shirka la soo qaybgalay kulan diimeedkani dalka Mareykanka ayaa sheegay in jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan dalkani Koofur Afrika ay haystaan nimco Ilaahay ku galaystay aysan haysan qurbo joogta Soomaaliyeed ee adduunka ku kala fiirsan سيادتنا عليك هالكان الدواجية أو بدنوالينا يوديجينا إلى روحكم وقتا وأنا مدة إذن كل بشيء إلى ديارتان مراكزكن إسكاشية هي بدنوالا الحوجين يتبرتين عقلين يحولين سوبيسان أول بعد هيستين إلى النسي إلى فضل إيسان إلى ديارتان مراكزتان يوم ودجلكان النعمة وأنا من الله لو شكريه وأنا إلى الحجسان مؤتمر كان أيام مدكي لحد قبقابسو أنا يسوق قبقابسوا ونورك يكون ديسي العلماء الصوماليين دل كان كوفر أفريقيا يالبيان سنة كان محافلة إنه كنت من هذا السنة دي هوري إدريس أحمد غوري تلفزيون عالمي كرسن مقالة جوهانسبرغ دل كوفر أفريقيا